لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha sharafta leh meel kasta aad joogtaan aad iyo aad ayaan ina salaamay. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ina weydiinayaa inuu dembigiina dhaafo, dembiga waalidkiina dhaafo. intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan walaalihii iga caawiyey in aan helo dhalinyaradii laga celiyay Denmark ee lagu xooray magaalada Muqdisho. waan helay lambarkoodii walaalaha iga caawiyey, kuwa sii qaybiyey dhammaantiinba. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga baryayaa in uu ina dembi dhaafo oo ina naxariisto. waxaan ina leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. intaa kadib walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuca la yiraahdo laba wajiilaha. qofka laba wajiilaha ah muxuu yahay? horta marka koowaad laba wajiilaha walaalayaal waa sifo aad iyo aad u xun. qofka inuu yahay qof laba waji leh, dadkana ugu yimaado wajiyo kala duwan. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ka digay, wuxuuna leeyahay sala allahu calayhi wasalam: tajiduuna shara annaasi da alwajhayn alladii ya'tii haaulaa'i biwajhin wa haaulaa'i biwajh. waxaad helaysaan buu leeyahay ood ogaanaysaan dadka kan ugu shar badan waa kan dadka oo la yimaada weji, kuwa kalena weji oo la yimaada. taa macnaheedu waxa weeye qofkaasi qof isku kalsoon ma ahan. kolba qolada uu la joogo ayuu u nacamleeyaa. dadka wanaagsan markuu la joogo wuxuu iska dhigaa sheekh khatara, nin fiican maasha allah. dadka fusaaqda xunxunna markuu la joogana waxa waaye wataqaanaa haya cirku mar haya, waa nin balaaye ah. wuxuu u imaanayaa, qof buu u imaanayaa, wuxuu leeyahay wallahi billahi saasaa tahay, waa fiican tahay, wallahi qof khataraa tahay. marka uu kula joogo weji farxad ayuu ku tusayaa. waxa weeye waa dhaqanka munaafiqiinta lagu yaqaano. markuu kaa tagana qof kale u tagayaa, adiga ayuu ku caynayaa. soomaalidu waxay dhahaan kuu sheega kaa sheege. macnaheedu waxa weeye waxay tilmaamayaan qofka laba wajiilaha ah. qofka laba wajiilaha walaalayaal waa munaafaq dadka ku dhex jira, waa munaafaq mucaamalaad xun suubiya, waxyaalahaas dadka kula dhaqma. wuxuuna ku shaqaystaa been, khiyaano iyo dhaqan xumo ayuu ku shaqaystaa. dadkan uu isku diraa. qofka laba wajiilaha ah ma ahan qof isku kalsoon. laba wajiilaha ah waxaa lagu bixiyey waxa weeye inuu dadka ugu shar badan yahay. sidaan sheegnay, qof isku kalsoon ma ahan, waa qof been iyo balaayo ku shaqaysta. laba wajiilaha walaalayaal dadka waxaa laga helaa noocyadiisa kala duwan. sheekhyada laga helaa, dadka ciyaal suuqinta laga helaa, odayaasha laga helaa, habraha laga helaa, siyaasiga laga helaa. soomaali haddaan nahay maanta horta laba wajiilo waxaa qaatay nimanka la oran jiray siyaasiyiinta ah. waxa weeye idaacadaha markay ka hadlayaan weji gooni ayay ku hadlayaan. marka aad shakhsi oo la sheekeysatid, marka aad baratid, marka aad aragtid mataqaanaa siday wax u wadaan, waxaad ogaanaysaa inay yihiin laba wajiile. runtii arrintaasna waa arrinta nala hartay oo dadka mujtamaca soomaaliyeed meel xun dhigtay weeye. waxaa loo baahan yahay qofka mu'minka ah oo muslimka ah inuu noqdo qof isku kalsoon oo hal weji loogu yimaado. waxaadana waxaa fiican in aad ku adkaysatid. maxaa yeelay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala u run sheegaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka qabuul ayuu siinayaa. macnaheeda ma ahan inaad mataqaanaa xumaan ku dhiiranaatid, laakiin haddaad wax suubinaysid weji cad ha lagugu yimaado oo suubi. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu naga ilaaliyo sifada xun ee laba wajiilanimada ah. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayaa inuu aakhiri adduunba noo dambi dhaafo. walaalayaal maanta waa maalin jimco, waa jimcadii bisha shacbaan ugu horreysay. insha allahu tacaala ramadaan waxaa ka hartay wax yar. halisu diyaariyo, halis cafiyo, quraan akhriska hala bilaabo. waxa weeye insha allahu tacaala ramadaan halisu diyaariyo. bisha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad ayuu u weynayn jiray. soonka ayuu badin jiray, khayrka ayuu badin jiray. waxa weeye marka waa bil aad iyo aad u fiican oo ah bishii ramadaan ka horreysay. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisa weyn mataqaanaa cadamada u saaxiibka ah waxaan ku weydiisanaynaa inuu ramadaanna gaarsiiyo annagoo nabad qabno, islamarkaana uu dembigeena dhaafo. wasalaamu calaykum. waxaan hilmaamay like saar, siina qaybi khayrka, liannao qofka khayrka dadka tusiya wuxuu la mid yahay kii suubiyo kale. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته.